dowladda Somaliland ayaa jawaab adag ka bixisay hadal ka soo yeeray wasiirka amniga ee Puntland oo sheegay in sanaaduuqda Somaliland ee dhinaca doorashada aan la keeni karin gobolada bariga. wasiiru dowlaha wasaaradda caafimaadka ee Somaliland Maxamuud Jaamac Garaad oo hadlay waxa uu wax lala yaabo ku tilmaamay hadalkaasi ka soo yeeray wasiirka amniga ee Puntland. waxaanu wasiiru dowlaha Somaliland si adag u sheegay in Somaliland ay ilaalinayso sanaaduuqda doorashada ee deegaanada bariga, isagoo Puntland uga digay inay soo farageliso arrimaha dhinaca doorashada ee Somaliland. waxaan ka maqlayay TV-ga wasiirka Puntland ee amniga oo ka hadlaya sanaaduuqda Sool iyo Sanaag iyo Cayn. waxaanu leenahay sanaaduuqda iyo rabitaanka dadkan shaqo kuma lihidin. wuxuu ninkaa weyni shir la soo fadhiistay oo uu yidhi dad baa la khasbayaa oo lagu khasbayaa inay doorasho ka qayb galaan. dadka doorashada ka qayb gelaya waa dad doonaya oo kiyuu u galay kaarka inay qaataan oo bacad isu taagay oo ku soo dhididay oo doonaya rabitaankoodii inay muujiyaan. annaguna waannu daafacaynaa, waannu u digaynaa maamulka yar ee dawlad hoosaadka ah ee Puntland inaanay soo faragelin arrimaha iyo afaaraha jamhuuriyadda Somaliland. wasiiru dowlaha wasaaradda caafimaadka Maxamuud Jaamac Garaad oo hadalkiisa sii wata waxa uu eeda isbarkan u jeediyey xisbiga mucaaradka ee waddani. daraato Burco inta dhagxaanka waadhida lagu soo guray iyo magaaladii la shiiday. waxaa u sababa mas'uuliyiinta xadjirka ah ee waxay doonaan ku hadlaya ee dadka cuqdadda iyo cunfiga gelinaya. xisbiga kulmiye waa xisbiga aad ku aamini kartaan qadiyadda jamhuuriyadda Somaliland. saddex kalena waa ka sharaako arrintaa. dawladda Tukriga, dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo xisbiga waddani waa ka sharaako. Badri Koosar Maxamuud, telefishinka Ariel, Hargeysa.